بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ لهانتنا غيرته وذا إنك دقيسانيساي كسو دوادا وركها بينمو الراديو مركبلي وشنطة بشا أكتوبر لبقون إلا بي لباتانكا وضبضا ورك الراديو مركبلي وقدر كورونا وحاكمدا حرون عصوب أو علاجا أو لغود داوين يوددك حنوسان أو لغفري دقمدان بارديري barakacyaal ku dhibaataysan duleedka baardheere oo codsaday in la gargaaro kusimaha madaxweynaha Jubbaland ahna madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo booqday suuqa weyn ee magaalada Kismaayo oo xalay dab ka kacay warbaahinta oo heshay codadka odayaal wakiilka ah al-shabaab oo doonaya in ay wada hadal la galaan dawladda wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo sheegay in uusan qayb ka noqon doonin muddo kororsi uu samaysto madaxweyne Dani gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo dawladda dhexe ka codsaday in beledweyne loo soo diro guddi baaris ku sameeya saraakiisha ammaanka magaaladaasi shirka wada tashiga wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka furmay Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee radio Markabley warka waxa in la socodsiinayo anigoo ah Yaxya Cabdirisaaq Soofe dhanka farsamadu waa Maxamed Xasan Cabdullaahi u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda Markabley wayna ka hadaba aan ku bilaabo warka caawa barakacyaal ku dhibaataysan duleedka baardheere ayaa codsaday in la gargaaro waxaana laga deerinayaa xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo degan xerada barakaca ee Kam Kululey ee ku taala duleedka bari ee degmada Baardheere sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Cumar Saalixi waxaa laga deerinayaa xaaladda nololeed ee iminka ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo degan xerada barakaca ee Kam Kululey ee ku taala duleedka bari ee degmada Baardheere dhibaatooyinka ay ka cabanayaan qoysaskaasi oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato ay salkiciyeen abaarta ayaa waxa kamid ah cunno la'aan hoy la'aan biyo yari iyo adeeg caafimaadka oo aad u liita maxamed cabdi yuusuf oo loo yaqaan maxamed dheere oo ah gudoomiyaha xerada barakaca Kululey iyo gudoomiye ku xigeenkiisa maxamed xuseen cabdulqaadir oo wareysi siiyay maanta warbaahinta Markabley ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka xagga nolosha ay qabaan dadka ku barakacay abaarta ee degan xerada Kululey iyagoona soo jeediyay codsi baaq ah in gurmad bini'aadanimo degdeg ah la soo gaaro dadka faraha badan ee ku dhibaataysan xeradaasi dadka ma haystaan horta wax la yiraahdo hooy ma helin wax la yiraahdo biyo ma helin daawo ma helin raashin hatta ma helin bacyi laga asheer la roobka siday u soo hayaameen oo ay barakacyaal meesha u soo degeen cid caawisay oo Ilaahay uunta ma jiro sidii bay u cadabiyihiin waxaan u baahanahay marka in cid alle cidii ay qusayso arrinkaas ko Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaa wax wal bixiyo labo maamulka degmada Baardheere iyo hay'adaha ay quseeyaan in ay gurmad degdeg ah u sameeyaan dadkaas oo wax daryeel haba yaraatay aan helin wali ku cadaban meesha kasoo barakacay goobo kala duwan
sida raaxoole ceelcilaan jawaarey maxaan ku idhahdaa gurbaan diinsoor baarka muumadheerow intaas ka kala yimidoo intaas soo qabiile ee meesha ku soo hayaamay oo dhibaato iyo xoololaan iyo abaar ay keentay welina aan helin wax gurmad ah xataa aan helin biyo daawo raashiin agab hooy midna aan helin ayaan waxaan codsanaynaa in wax loo qabto haddii la yidhaahdo waa tahay markaa dadkaas hadda xaaladda nololeed ee iminka ay ku nool yihiin waa sidee xaalad bini aadamtii ugu xumbeedna ku nool yahay wax ay ayaga magaalada ka toogsadeen ama islaamku uu u geeyey maayna wax ay la soo degeen xoolahan male cid wax u qabatin hadda ka hor ma jirto dadkaasi barakacayaasha ee faraha badan ee aad sheegtay deegaanada ay ka kala yimaadeen waxaad iga warantaa bal dadkaas hadda iminka maxay ku tirsantahay noloshooda waxay ku tirsan tahay wax magaalada soo galay oo iska tuugsado nin naagaha magaalada jooga dharka u dhaqa nin maxaan ku idhahdaa beeraha jiimiyaalka algaroobyada soo guro oo sida tiirarka iyo wax saas oo kaleete ama nin carro qodo oo maalintii sida nuurisada oo kaleete dhagaxyaha jibiye oo nolol maalmeed saas ku raadsada ma ogi wax kale oo nolol ay haysan ma jiro waa imisa tiradooda markaa guud ahaan tiradooda 740 qoys waay waa dadkaasi ilaa iminka xiriir ma la sameeyeen maamulka degmada iyo hadaha sanfalka si gargaar bini aadam loo soo gaarsiin lahaa waa la sameeynay waana naga aqbaleen laakiin wali wax la soo gaaray ma jiraan marka maxaa baaq oo aad jeedinaysaa iminka waxaan jeedinaynaa in la sii adkeeyo arrinkaas asaga ah oo dadkaas dhibaataysan oo Soomaaliyeed oo muslimiinta oo meelahaas ka kala yimid in wax loo qabto oo gargaar degdeg Ilaahay ba gargaar bixiyo ay helaan waa gartay maxamed xuseen cabdul qaadir waxa taa gudoomiye ku xigeenka xirada barakaca ay kululay waad maqlaysay gudoomiyaha inta maxaad ku dar lahayd waxaan ku darayaa in macnaha ma dheeraynayo ummadaas meesha joogto oo muslimiinta ama inta macnaha way hay'ada Ilaahay wixii uu soo qaaday in macnaha dadkaas ay macnaha helaan ayaan macnaha ayaa codsanaynaa oo macnaha Ilaahay ugu soo qaado maamulka degmada Baardheere iyo muslimiinta Baardheere joogan intii ay qof ummadaas wax u heli karto inay macnaha wax siiyaan codsanayaan kaamka waxa jira kaam kasta wax la siinay maamulka degmada ayaa aqoonsaday marka adin kaamkiina wax aqoonsi ma ka helay maamulka degmada inuu kamid yahay kaamka barakaca ay ku yaala magaalada Baardheere kaamka maamulka waa codsigaas waa ka helay aqoonsigaas marka waxa uu qabasho muugi hadda wax kale oo hadda dhibo meesha ka taagan malaha waa aqoonsaday marka maamulka iyo wixii qusaysan arintaas inay wax noo qabtaan arnaa fariin waxaan ku dirayaa in ummadaas meesha joogto la caawiyo baan ku dirayaa oo loo gurmado Axmed Umar Saalixi radio Markabley Baardheere isla wararka Baardheere ayaan ku guda jirnay xarun cusub oo cilaaj ah oo lagu daaweynayo dadka xanuunsan ayaa laga furay magaaladan Baardheere xaruntan ayaa adeegyada ay u qaban doonto bulshada Baardheere ayaa waxa kamid ah sixirka jinka xasidka isha baabasiirka infectionka caado wareerka umusibiyaanka waalida raganimo yarida iyo la tacaalida dhalmalaanta ilaah ayaa awlaada bixiye haddaba maamulaha xarunta cusub ee Daarul Cilaaj Sheekh Cabdi Malik Ahmed Xaaji ayaa wariyaheena Axmed Umar Saalixi uu ka wareystay waxa ay qabanayso xarunta horta waxa kamid ah waxyaalaha ay qabato sida dadka yani ma aragtay cuduradan jibriil waa laba nooc waa amraad ruux iyo amraad nafsi ay kala baxaan amraad ruux waxa la yiraahdaa waxyaalaha yaamaatay shabaintu ay ku shaqa leedahay amraad nafsina dhaqaatiirta kale iyaguna yani ma aragtay sida yani daawada kimika gala ayay iyagu qaas tahay marka waxaan yani arintan igu kalifay inaan yani aan dadka uga faa'iideeyo dadka waxaan arkay aad xanuunadan ruuxiga ula ildahan sida yani maaragtay sixirka oo kale jinka oo kale ish oo kale baabasiirka oo kale umusibiyaanta oo kale caado wareerka oo kale dadkii aad u dad badan baan arkay oo aad yani maaragtay ugu ildaran waxaana igu kaliftay inaan hawshan yani maaragtay aan dadka uga faa'iideeyo iyaguna ay iyaguna caafimaad helaan anaan u faa'iido ayaa igu kaliftay arrintaas waa tahay Sheekh Cabdi Malik marka qaab noocee ayaa dadkaasi aad ku daaweynaysaa waxaan ku daaweynaynaa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala
iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ku daaweynaynaa iyo qaabkii uu nebi maxamed uu u daaweynayo oo yani tibul cashaabka yani maaragtay ayaan ku daaweynaa. waa tahay hawshan dabcan hawl sahlan ma ahan horay hawl noocan oo kale meelaad ugu soo qabato ma inoo sheegi kartaa? meelo badan oo dalka gudihiisa ayaanu ku soo qabanay oo kamid ay tahay muqdisho, garowe, gaalkacyo, beledweyne, afmadow, doobley, booqaani, meelo badan oo hadda aanan soo koobi karin oo boosaas ay kamid tahay ayaa yani maanta aan ku soo qabanay oo dad badan ilaahayna uu ku caafiyey ku shaafiyey muraadkii ay lahayna ilaahay u gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala. waa gartay marka hadda xaruntan degmada Baardheer ayaa laga furay dabcan maalmaha soo socdan adiga ayaa ku soo dhow inaad timaadid marka dadka reer Baardheer ee cabashada qaba inta badan u baahan in wax laga qabto hawshaad u socotid maxaa ugu baaqi lahayd? waxaan aan ilahaa oo waan u yeeri lahaa una baaqi lahaa in hawshan waa hawl yani maartay dadka reer Baardheer dad badan oo naga soo codsaday baa jira awalla oo yani maartay muddo yani sanad iyo xogaa yani maartay aan hawshan aan ku guda jiray inaanu Baardheer xarunta aan keeno dad weysiir yani deegaanka ayaa iga soo codsaday inaan hawshan aan soo gaarsiiyo Baardheer sida yani maartay cudurrada aan ku sheegay oo ruuxiga ayaa aad ugu badan marka waxaan ugu baaqayaa hadda yani maartay ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo kii keenay oo ilaahay yani maartay noo kii soo sahlo inaan nimaadno yani maartay ilaahay yani maartay uu qoray waxaan dhihi lahaa ka faa'iidaysta taanu joogno insha Allah ta'ala aad u mahadsan gacmo furanna ku soo dhawaada waji furanna ku soo dhawaada waa yani maartay si hagar baxsan oo daacada oo ilaahay u yeebaanu idin daaweynaa oo leenahay. waa gartay marka dhinaca kale waxaad sheegtay dhanka waalidoo kale in aad wax la qaban doontaan dadka walwaalan oo kale ma jirtaa meel aad ku xarinaysaan miyaa idin qorshaysan inaad samaysaan? waxaan noo qorshaa inaanu samayno meel yani maaragtay aan xerayno kuna quraan saaro oo yani maaragtay xaalkooda aan kula soconno ayaan noo qorshay insha Allah ta'ala haddii ilaahay ilaa biidnillah baa ilaahay idankiisa. waa gartay ugu dambeyn marka dadka danaynaya arrintan iyada ilaa xalay maqlay raadiyaha ka dhigeysanayay xarunta xagee ku taala goormees ayaa shaqada bilaabi doontaa? haddii ilaahay yiraahdo xarunta waxay ku taalaa Baardheer maartay qaybta yani maartay hadda idinku aad sheegayseen bay ku taalaa kamida hawadaasay ku taalaa marka haddii ilaahay yiraahdo bisha ayaan bilaabaynaa sida u dhaqso badan inaanu bisha ama 10keeda ama ka soo hormaro ay isdayna haddii ilaahay yiraahdo waan soo wajahanaya haddii ilaahay yiraahdo maalmaha nagu soo aadan haddii ilaahay xaq ilaahay ka noqotay ilaahay albaari. kusimaha madaxweynaha Jubbaland ahna madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa booqday suuq weynaha weyn ee magaalada Kismaayo oo uu xalay dab ka kacay. waxaan booqasho ku nimid dabkii xalay ka kacay suuqan magaalada Kismaayo sidaad indhihiina ku arkaysaan khasaaraha intuu leeyahay dabkan oo 9kii fiidnimo kacay ilaa iyo 3dii socday waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiintii kala duwanaa oo ka qayb qaatay howlgalkan iyo dadweynihii reer Kismaayo oo isu soo gurmaday waxaa aad iyo aad xusid u mudan ciidamada amniga sida ay arrintan u maareeyeen oo kaga hortageen dabkan inuusan faafin awoodooda iskugu geeyeen inay hantida shacabka badbaadiyaan ayagoo kuwa xun oo maaragtay inay si dadban ugu faa'iideystaan rabayna ka hortagay waa arrin taariikhi ah oo ku abaalmarin doono haddii alla idmo sidaad arkaysaan khasaaraha halkan ka dhashay waxaan u qaban doonaa guddi waa la qiimeyn doonaa dadka walaalaha oo halkan hantidooda wax ku soo gaareen waa la qaybsanaysaa dawladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeedba khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka barannay wixii hadda ka dambeeyay waa inay duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka uu hogaamiyo ay u howlgalaan sida loo maareyn lahaa businesska iyo batroolka iyo baaziinka sida loo kala duwi lahaa aagaga ku habboon loogu sahmin lahaa in dibdemisyo la helo magaalada ku filan xalay waxyaalaha ugu khatarta badnaa waxay ahayd xagga dibdemiska iyadoo booyadaha biyaha dhan ay maaragtay gurmad ugu keenay in haddana dibdemiska uu hal noqday halkaana la ogaaday faa'iidada uu leeyahay marka sidaa darteed waxaan rabnaa in wixii hadda ka dambeeya casharkan ka baranayna ay noqoto inay magaaladan yeelato dibdemisyo ku filan
oo ay u howlgasho loo howlgalo dawladda Jubbaland sidii arrinta loo meeleyn lahaa ugu dambeynta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay intay khasaaraha ka soo gaareen ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo iyadoo aan la qaybsanayno guddigan u qaban doono soo qiimeeyo dhibaatada baaxadeed intay leeg tahay talooyin fara badan aan ka geli doona hadba masaa'ibtan dhacday sidii hadda kadib u soo noqon lahayn loo gaashaman lahaa warbaahinta ayaa heshay codadka odayaal wakiilka ah al-shabaab oo doonaya in ay wada hadal la galaan dawladda warar soo baxaya ayaa sheegaya in al-shabaab ay soo wakiisheen odayaal dhaqameedyo kuwaas oo doonaya in wada hadal ay la galaan dawladda Soomaaliya idaacadda ayaa heshay codka mid ka mid ah odayaasha wakiilka ka al-shabaab ee doonaya in ay wada xaakiid ka galaan kacdoonka shacab ee xilligan dalka ka socda odayaasha wakiilka ka al-shabaab ayaa tir ahaan gaaraya 3 nabadoon kuwaas oo haatan bilaabay in codad ay u soo duubaan saraakiisha hogaaminaysa howlgallada iyo beelaha dagaalka kula jira ururka al-shabaab wararka waxay sheegayaan in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamadu ay ka beedideen dalabkan uga yimid odayaasha wakiilka ka al-shabaab mid ka mid ah odayaasha wakiilka ka al-shabaab ayaa soo duubay codkan isagoo dalbanaya in dagaalka la joojiyo isla markaasina wada hadal lagu dhameeyo wax walba subxaan rabaa 3 niman nahay waana soo wakiishteen in tulka aan la hadalnaan rabnaa nimankiin kuwa weynaa magacyadooda iyo telefoonadooda haddaan helno waxaan dhahnay bal yan intaan war hordhacan aan iska sii hormarino saasaan idin soo wacnay hadda ilaahay idmaayo waxaan ka rabnaa haddii alla idmaayo waxaan ka rabnaa nimankii aan warka ka wadnay warkooriyaan idin sheegaa waxay miiska soo saareen oo yidhaahdeen dhul hawee waa in kaga tagaynaa koonfurta Soomaaliya hanooga daba imaanina yaanan isku baabi'in nin ahlu tawxiida oo diin u taagan iyo nin idinku aad wadatiin oo laba tala oo hawiya oo ilma hiraaba oo ilma hartaab gaala iyo iskula baabi'in nimankii saasay taagan yihiin nimankii idinkuna maha kala ka socdaa tihiin waxaa rabtiin wata dawladdaa rabtiin wata qabiilkaa rabtiin wata hawiyihiinna wata waxaa rabtiin wata dhulkaan 10 iyo intaasoo sano annagu shareecada ku haynay shareecadan ku hayn haddaad dhisateen idinku ama gaalnimo tira ama shareecada ay ka fiican aad beer ku mugtihiin waa in kaga tagaynaa dhulka fureedan aadaynaa annooga daba imaanina arrinkaasaan wadnaa inaan idin nimaadnaan rabnaa waxay waraad qabtiinna maha aan ka soo wacno waxay su-aal laysdhahaayna laysdhaho oo anu kala noqonne odayaalkii kow gobasho furay oo dadka dhiigooda kala badbaadshay arrinkaasaan wadnaa may nala qaadeen oo maskuugnahay 3 odayaan nahay mahad low imoo tira inaan idinku imaahaynaa cadar agteera aan joognaa nagama fogidin taa u badan 3 saacaad idin soo socoynaa joog marka arrinkaasaan rabnaa qaraabooy rag dhiigooda hala kala ciisho saan dhaqan maaha waxaa ka dhimaayo waa hawiye waxaa inta ka dhimaayo waa hawiye wixii kale oo nimankaan la socday oo kalentana hadda waaba sii yaraadeen ama way iska tageen halkii joogana waa un hal ama beri socodkiisa asaliito ama in la isdhaafsho u baahan marka tolkiyaan nahay qaaqoosa aan u hadalno diinta meeshaynoo taallaa diin ma jirto diin hadday jira diin ma jirto ilaa daday u jirtaa diinta dadkay u jirtaan nahay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay wajahayaan xilligan culayska ugu weynaa kadib markii deegaano badan oo hore ay u maamulayeen ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee kacdoonada bilaabay kacdoonka shacabka ayaa waxa uu ka socdaa gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe Mudug Galgaduud iyo deegaano ka tirsan koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay in uusan ka qayb noqon doonin muddo kororsi uu sameeysto madaxweyne Dani iyadoo muddooyinkii dambe eedayn kulul ay ka soo yeerayeen siyaasiyiinta mucaaradka ee Puntland isla markaana ay ku eedeynayeen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu wado muddo kororsi ayaa waxa arintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa oo warbaahinta la hadlay ayaa beeniyay wararka sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu wado muddo kororsi xilli siyaasiyiinta maamulkaasi ay arintaasi ku eedeeyeen wasiir Juxa ayaa sheegay in muddo kororsi uusan qayb ka noqon doonin isla markaana hadda aysan jirin wax muddo kororsi oo uu wado Saciid Cabdullaahi Dani barnaamijka muddo kordhinta horta waxa muhiim dadka inay fahmaan guddiga doorashada inoo joogaan tibik shaqadiisa u gobolayaasha deegaanka doorasho madaxweynena maaha mid baarlamaanna maaha
miiska saaran hadda waa golayaashii deegaanka ee Puntland maaliidka uu ku shaqeynayo guddiga doorashada iyo midka aan ku shaqeynaynaana waa ka marka wax aan joogin maalinteeda hal gaar maalintaas baash hal kale laakiin ku darsasho wax liyaa miiska saaran ma jirto dawladdaana wax dana oo gaar ka ah ka shaqo inuu hirkalo barnaamijkaani oo miiska u saaran ma jiro waxaana taa qayb kama aha qayb barnaamij loo casarada barnaamijkeena tiibad baa la wada suuri waa qaanuuni isaga farsamayaqaana isaga adduunku kala macaamila isaga aynu u xilsaaran waxaa kaloo jira dawladda oo la hawlka aan ku sheegayo waa inay koordinaysto barnaamijka inay jawi abuurto inaysan faragelin inay commitment dhaqaale iyo amni iyo siyaasadeed ay siiso waxa kaloo muhiim ah in international community ay qanaaco ku qabaan barnaamijkan oo jawigaas oo noqdo waxa kaloo muhiim ah in saxaafadda iyo ururada bulshada iyo hareeraha kala jooga ay kalsoonida arkaan aniga shaqadayda marka waxa weeye inta aan ku sheegay iyo jawiga inaan abuuro dadkana ka dhaadhicino ka garmarsano tareenkana aan dhaqaajino hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa imaanaya xilli siyaasiyiinta mucaaradka maamulka Puntland ay maalmihii dambe eedenkul u jeedinayaan madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Deni kaasi oo ku eedeynayeen in uu wado muddo kororsi sharci darro shirka wada tashiga wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ka furmay Muqdisho shirka wada tashiga wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo socon doona muddo 2 cisho ayaa ka furmay magaalada Muqdisho shirka waxaa shir gudoominayay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud shirka oo socon doona muddo 2 cisho waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoona ka qayb galayaan khubaro arrimahaasi ku xeel dheer ugu horeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay shirka kulay waxa uu maanta ujeedkeena ama shirkeena uu daaran yahay kulankeena caadiga ahaa ee wada tashiga oonaha kulankii ugu horeeyay ee aan isugu nimaadno wasiirada dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda taasoo ay ahayd ujeedada in maadaama aynu hadda bilow howl shaqo aynu wadanahay annaga xaggayga ama dowladda federaalku laga yaabo qaarkoodna waa asxaabtuna way nala yihiin dad aan annagu saa nooga sii fogeen intooda kalena ay yihiin dad hore howsha usii waday inaan maadaama hal page aan rabno inaan ku wada shaqeyno inaan page-ka aan ku wada shaqeyn lahayn wada shaqeynta inaan waxun isla dhahno hadduu ilaa yaraado shirkeena wuxuu noqon doonaa shir 2 cisho ah dowladdan waxaan ku saari doonaa ama doorka ugu muhiimsan waxaan ku saari doonaa howlaheena shaqooyin ayna hor yaala heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida aynu u wada shaqeyn lahayn qaar ka mid ah wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedyada sida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha Puntland ayaa dhankooda soo dhaweeyay shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho annagu ka wasaaradda ahaan dowlad goboleed ahaan waxaan hoos tagnaa dowladda federaalka sida daraaddeed annaguna maanta waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan in hoos tagayno wasaaradda isboortiga ee dhalinyarada federaalka waan ugu hortiinaan ka ballan qaadaynaa si hagar la'aana si taabagala si xushmada si wanaagsan inaan ula shaqayno wasaaradda sababtoo ah wasaaraddu waa naga keensatay waa naga mutaysatay howshooda bilowga ah waxaa farxad ii ah inaan maanta kala soo qayb galo shirkaan oo nagu casuumay walaalkeena wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo run ahaantii goobjoog ay ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada wasiirada dhalinyarada ciyaaraha ayadoo lagu ariminayo arinta dhalinyarada guud ahaan ee dalka run ahaantii waa maasanyahay wasiirkii dhammaantiin soo qaybgalay shirkan waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galno dalka burbura galay sportiski waxaa qabsaday niman xiriir la yiraahdo sida laga sheekeeyeen waa waxay ka horeeyeen wasaaradii waxay la mid yihiin daladii waxbarashada wasaaradda waxbarashada markay dhahday imtixaankii wuxuu noqonayaa mid centralized ah waa laga qaadi waray waxay taagan yihiin imtixaankan aan soo wadnay 22 sano ama 30 sano sidee wasaarad dhawaan la sameeyay ee u qaadan kartaa marka naftirkeena waxaan laga rabaa anaga wasaaradda
federaalka waxaan kula talin lahaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo guddiga Olombikada jiro naftirkooda in loo galo si daahfuran si furfurnaan leh anagana waxaan jecelnahay maadaama aan Hirshabeelle dowlad ahaan ama isteed ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala oo kuna qanacsanahay in wasaaradda si toos ah ula shaqayn doono inaan shirkan ka soo qayb galno oo ahaa shir muhiim ah waqtiga la joogo loo baahnaa waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda oo ah nin dhalinyaro ah juhdiga iyo dadaalka uu geliyay insha Allah tacaala waxaan leenahay Ilaahay ha la garab galo shirka waxaa sidoo kale hadallo ka jeediyey khubaro ku xeel dheer arrimaha dhalinyarada iyo ciyaar oo ay ka mid ahaayeen wasiir hore Saciid Jaamac Qorsheel Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari iyo xildhibaanad Dahaba Suusow oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya urdun la yahay in maanta durtaba maxay ahayd maamul goboleedyadii iyo maxay ahayd wasaaradii la isdhex fadhiyo waa talaabo weyn anagu haddaan nahay bahda sportska odayaasha hore khubarada sportska waa hambalyeena leenahay dhammaantiin waxaan ugu hambalyeynaa sida wadajirka ah oo kooban aad isku fahanteen haddii dawladdu ay culays saarto sportiga marka la leeyahay waxa soo gelayo dhalinyarada soo gelayso dhalinyaradana waa xooga force-ka wadankan u baahan yahay in la jaheeyo oo xil la saaro sababtoo dhalinyaradii maanta alxamdulillah dhalinyarada ugu badan dalka waxa waaye waa dhalinyaro way 75 aniga waxaan dhigi karaa 80 ay ku sii dhow yihiin waa marka xoog loo baahan yahay in la jaheeyo lagu jaheeyo dalkan sidii dib loogu dhisi lahaa dalkan sidii uu nabad u heli lahaa dalkan sidii looga saari lahaa dhibaatooyinka waxa aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta wiilkaan wasiirkana oo wiilkayga iyo walaashay fahmo shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad aan ku farxo wijiyo cusub maamul goboleedyada inta qaarkood ma baqaan hadda intaan ku barano Hirshabeelle ka soo jeeda hadda inta ku arko wasiirkiisa waa ku faraxsanahay dhamaan inta wasiiro joogto oo maamul goboleedyada ka socoto waxaan leeyahay oo idin soo dhaweynaa xaqbo dardaarna idin ku daraan ciyaaraba inaa ku dartiin gabdho yeehan wiil kale shirkan ayaa la soo gabagabayn doonaa maalinta birita iyadoona laga soo saari doono warmurtiyeed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa dawladda dhexe ka codsaday in beledweyne loo soo diro guddi baaris ku sameeya saraakiisha ammaanka magaaladaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jayto Cusmaan oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerarada isqarxinta ah ee ka dhacay magaalada beledweyne gudoomiye Jayto ayaa sheegay in ugu yaraan dad ka badan 3 qof ay ku dhinteen qaraxyadaas tirada dhaawacana ay ku dhow yihiin 60 meeyo asigoon sidoo kale tilmaamay inay jirto hanti badan oo ku burburtay weerarada isqarxinta ah ee mataanaha ee ka dhacay magaalada beledweyne meesha waxa ku dhintay dad 30 qof ah inta aan xaqiijinay meydkooda hadda maantadan wax go'an lug go'an oo aan dhalinyaro u dirnay soo qaado aasta oo kadinka hore ee halka ciidanka Djibouti joogo ayay ku jirtay ayaan ku aragnay qaybtii kale lugtaas qofkii bini'aadamka ahay gaar u maqanaana waruma hayno dhaawacana ilaa 55 qof ayaan ayagana xaqiijinay waxna beledweyne yaalaan 58 qof waxna beledweyne yaalaan inta badan xamar loo qaaday wixii guri ku yeelay iyo wixii ganacsi ku yeelay iyo wixii hotel ku yeelay fursadii ka baxeen waxa iga daran ganacsiga waxa qasaari gurigii kaliya maahe waxa isku dul dhacay agabkii ganacsiga gudaha ku jiray iyo gurigii waa isku dul dhacay qofkii gurigiina waa ka qasaaro waa burburay ganacsiga u dhaxyeelna waa burburay waxaan leenahay ilaahayga subxaanahu wa tacaala dadka ha u boogadhayo dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsana in dadkaas dib loo eego masaakiinta ee awal bacdibna ee abaarta ku jiray ee noloshooda waxa ku sugnaad ilaahay garanayo in masiibada dhacday gurmad loo fidayna waa codsanaya mustajaayto si warramayay ayaa sheegay in dabac ka yimaaday hay'adaha amniga sida sirdoonka iyo booliiska ay sababeen qaraxyadii ka dhacay beledweyne asigoona ugu baaqay madaxda sare ee Hirshabeelle iyo kuwa dawladda federaalka
inay tallaabo ka qaado 2 sargaal oo xukunta booliiska nabsugida gobolka Hiiraan. argagixisadu dhibaato waa geysataa waa institution argagixiso ah waa virus ummadda dhiigeeda caadaysatay laakiin waxaa la rabaa mas'uuliyaddu inay cid yeelato saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay midna galabtii soo gudbay saddexdu buundaasi ka soo gudbeen labada dhinacna waxa ka jooga ciidan askar baa ka joogta booliis ah ayaa labada dhinac ka jooga kaliya qaybta booliiskan ku yiri ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dembiga intaa leeg qof xil iska saara ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo labada buundo abligooda xajiyo ayaan farnay mana ku camal farin waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaab la ah qaybta nabad sugidda in aan qaraxa baabuurka ku war helno jugta inaan ku war helno oo qaraxa intaa la eg taliya qaybta booliiska muxuu ahaa nabad sugidda halkan joogay wax oo hay'adii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinayo xogta waxa keena waa nabad sugid habay yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa meel askar la'aan uma jirto waxaan filayaa 90 askari miya ama askar inay gaarayaan u malaynay ayaa nabad sugidaha joogta kuwana dhowr boqol oo askari waay dhowr boqol oo askari booliiska waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa labadaas sarkaal in hoos loo fiiriyo mas'uuliyad darrada meesha ka dhacday waxaana ku eedeysan oo falka meesha ka dhacay mas'uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliye qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta booliiska geedka ragaga waxa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ay ahayd waxaa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxa ka dhacay dagaal waxa la jabshay ciidankii Soomaalida la jansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay 5 sarkaal maxkamad lagu saaray meesha waana la toogtay haddii ciidanku la jansa taliyaha ka timid oo jab ku gaaro koodisha binaale xeerka cinqaabta ama buuga ciidamada markii la yiraahdo dil toogasho waxaan sheegayaa inay run yihiin waxa cadeyn u ah oo marqaati u ah aniga bisha afraad ay ilaa tonduur ku jiro waan shabaab la dagaalamay haddana fakultigaan ku shaqeeyaa sarkaal dagaalamay gobornatoorka taa kuleen baa laga rabaa wax kale looga baahan yahay ma jiro oo dagaal looga baahan yahay in fakultigoodu maran yahay oo aysan amni u soo jeedin oo aysan security ka shaqeynin marqaati taasa waa daraad habeen horaan soo galay aniga labadoodana magaaladan ugu imid subaxiina qaraxaana dhacay oo maxay ka shaqeynayaan adeero gabagabada Cali Jayto Cusmaan ayaa sheegay in la wareegi doonaan guryaha ay kareysteen al-shabaab ee ku yaala magaalada Beledweyne haddii aysan dadka milkiilayaasha ku soo wargelin dawladda ama laamaha amniga waxaan looga qorshaysan shabaab ama haboodo ama hadago ama bidixda ku salaamo shabaab haddana xoogiisaan burburinaynaa saacadaha ku soo xigana ukumihiisaan bixinaynaa ilmihiisa caruuriisa magaaladan ay joogaan halkan ay joogaan waa ognahay waxa ka dhacday Nuur Xawaad anigu hooyadiis u soo kaxaysay farmasi oo dawladda wax ka sii rabtay
ayaa ciidan tuutal soo hormaray markaasuu hooyo gaaladaday magaalada Beledweyne inay ka dhacday ugu maqaalan tahay wallaan ku dhaarto billaan ku dhaarto tallaan ku dhaartay ukumihiisa inaan bixinaya hadaan nabada waxaan nooga qorshaysan shabaab hadda waxaan daba joognaa kiisii qoriga lahaa islaamihiisa caruurihiisa ukumihiisa iyo kii bari la shaqeeyay nama cafi doono waxaan rabaa dadka reer Beledweyne ama reer Hiiraan ee shabaabka guryaha ka ijaartay waa wada garanaynaa intooda badan waxaan si cad ugu sheegaynaa qofkii shabaab guri ka ijaara asagana inuu xabsi mutaysanayo gurigana in la wareegayo oo dawladda la wareegayso hadda qof kasta ay shabaab iska saaro qofkii inuu shabaab wanaagsan yahay aaminsan ha ku haysto laakiin saacadan anagu u nimaado gurigana waa la wareegaya asagana xabsi lagu riday dhageystayaal warkii waad kala socoteen idaacadda Markabley caawa